Hello, السلام عليكم. waxaa halkan idinka salaamaya madaxweynihii qurba jooga anigoo ah madaxweynihii qurba jooga aad iyo aad baan u salaamayaa qurba joogu meel kastuu joogo dal kastuu joogo midab kastuu leeyahay af kastuu ku hadlayo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay sharaf iyo ciise ku noolaada dal kastaa joogtaanba waa idinla jiraa waa idinla soconaa waa idin ognahay waa sharfantihiin sharaf baa leedihiin waanu idin ducaynaynaa sharaf ku noolaadaan idin leeyahay marka hore taa hoosta ayaan meesha usoo galay intaas kadib magacaygu waa cirmar dhulmar oo ah madaxweynihii qurba joogu waxa uu ka kooban yahay 194 dowladood waa qof kasta oo jooga dal aan dalkiisii ahayn meel kastaba ha ka jooga adduunka waxaan madaxweyne u ahay 194 dowladood dadkiisa dibadda ku maqan ayaan madaxweyne u ahay taasi waa taa lay doortay aad waa ugu mahadsantihiin aniguna xilka waa gudan doonaa haddii alla idmo waxaase aan caawa halkan usoo galay arrin yar oo aan ka xumaaday oo aan aad uga xumaaday oo aan ku arkay dad aan mas-uul ka ahay oo samaynaya oo dalal ku xadgudbaya arrintaasoo ah rag sheegtay madaxweynayaasha Somaliland nin Martin la yaaho Mareykanka jooga iyo nin kale oo Ingiriiska joogo isna magac sheegtay title aanay lahayn bay sheegtay laba nin oo qaxoontiya nin qaxoonti waxaan idin sheegayaa inaanu horta madaxweyne noqon karin madaxweynaha qurba jooga ayo dadka dibad wareega ay madaxweynaha oo aniga leeyahay anigaana mas'uulka dadka noocaasa waxaana waajib iga saaran yahay oo aan halkan si degdeg ah ku soo talagal u soo galay inaan arrintaa wax ka idhaahdo oo ah de mas'uuliyad isaaran maadaama aan ahay de madaxweyne qurba jooga qof kasta qurba jooga wixii de au sameeyay xumaana iyo wixii wanaagay au sameeyaaba de ay qusayso aad baan uga xumahay dadka noocaas xumaanta sameeynaya ee ku xadgudbaya dalal ay ka soo qaxeen dalkay ka soo qaxeen ku xadgudbaya horta marka hore aad iyo aad baan uga xumahay waana cambaaraynaya labada nin taa sameeyay nina Ingiriiska joogo nina Mareykanka joogo nina sheegtay Martin magaciisa ma kare ninka kale magaciisa de magar laakiin wax la magacaabo maaha qofka noocaasi intuu qaxoonti dal ku yimi oo dalkiisii ka soo qaxay oo qaxoonti ku yimi markuu soo qaxay dal kala weydiistay magan geliyo haddana markii ay nafta ku qabteen haddana sheegtay waxaanu ahaynoo xumaynaya kii uu ka soo qaxay dadkii maatada ahaa ee uu ka soo qaxay gaajoonayaan waran yihiin dariiqyada iyo darbi jiifka ilaahay de kii kuya xilka maartay uu dul saaray adduunka dad baa de xilka qof walba waajib baa la saaray dadkii la saaray dadka darbi jiifka kamid bay haayeen laakiin ilaahay iyagii baa deed warsaday oo deed doontay oo doonay u yimid de qaxoonti ku yimi oo u yimi inay cayr qaataan marka cayr qaateena de waa kuwa damcay inay sheegtaan madaxweynaha aad iyo aad baan uga xumay dadka noocaasa waana kuwa inaan wax ka qabanna naloo doortay xilkan loogu dhiibay waanu ka qaban doonaa saa ugu dhaqsaa badan leh United States iyo United Kingdom waxaan u gudbin doonaa codsi degdeg ah waxaanu ka mas'uulnahay 100 oo aanu mas'uuliyad naga saarantay dadka adduunka jooga qof kasto dal aan u dhalan jooga mas'uuliyad baa naga saaran waxaanu mas'uul ka nahay dadka Mareykanka ee jooga dalalka kale waxaanu mas'uul ka nahay dadka Ingiriiska u dhashay ee United Kingdom u dhashay ee dalalka kale jooga
mas-uuliyadoodna saarto madaxweynaan u nahay sababtaa saanu uga codsan doonaa inaanu labadaa ninba u masaafurno dalkii ay ka soo qaxeen ka yimaadeen oo aanay metelin qurba joog aanay ahayn dad caadi ah dadka waxaa samaynaya iyo noocoodaasi iyo kuwa u tumayaaba waanu qaban doonaa insha allahu bidmillaahi karim annagoo la kaashanayna United States iyo United Kingdom madaxdooda si degdega waxaan idiin sheegayaa bal garanay horta Soomaaliyeed waxa aan idiin sheegayaa anigoo cambaaraynaya dadka waxaa samaynaya ee qaxoontiga intay dalka ku yimaadeen waxaa haddana dalalka kale ku samaynaya oo aad u cambaaraynaya waxaan haddana idiin sheegayaa magacaynu wadaagnaa dhalashadaynu wadaagnaa waxa weeyaan wax waliba oo xumi waa يعني وانا دبيان واسبس وحي wanaagsan sameysana waa wax annaga يعني waxna taraya way magacaynu wadaagnaa dadka noolasi 194 dawladood dadkooda ayaan madaxweyne u nahay oo madaxaan u nahay oo aan يعني noosiman oo aanan de kala gudbeen haddana afkaynu wadaagnaa diirkaynu wadaagnaa waan dalkaanu ka soo jeednaa u dhala ayaa tihiin marka waxaa waajib ah inaad talada qaadataan oo ta wanaagsan qaataan waxa wanaagsan samaysaan dad badan oo wanaagsan oo dadka qaxoontiga dadkoodii wax tara oo dalkoodii wax tara oo dalkooda jecel ayaa jira oo sharaf leh laakiin waxa jira dad xumays caruurtiisi halaawday oo calooshi la ciyaar mooya aan wax kala balqaxi maxasoo ciyaar waxa la ilowshiya dhawa waa shalay buu soo tahriibo maanta madaxweyne sheeganaya halku ka soo tahriibay yani hooyadii baan wax tarin adeerkii baan soo caruurtii ku dhalay baa ayaan wax tarin marka isagoo caynkaas oo yani ka saaqiday reerkiisi aanu taliya caruurtiisi cid kale wax daradaayo buu doonaya inuu dhibo kuwii ogaay ka soo tahriibay halku ka soo tahriibay joogay maatada aha ayuu doonayaa inuu dhibo aad iyo aad baan uga xumahay waan cambaaraynayaa ballanse waxaan ku qaadaynaa oo ballan naga saaran yahay inaanu labadaba jeembayno labada sheegtay madaxweynayaasha Soomaaliland inaanu jeembayno waan ogahay inay jannada ka jecel yihiin Ingiriiska iyo Mareykanka oo ay isleeyihiin waa ku baxsanaysaan waxa weeye ballan waxaan ku qaadayaa inaan labadaba aan iyagoo jeembaysan ka rogo halkii ay ka yimaadeen ka soo tahriibeen labaduba iyo wixii u tumayeen noocaasiba waayo sababtoo ah annagu cidna ku xadgudbi mayno laakiin cidda xadgudubtay magaca qurba jooga ku ciyaaraysa waa qabanaynaa waana xilbaana naga saaran dawladahana waa kala hadlaynaa aad baan idin salaamay waa cadhaysanay raaliga ahaad arrinkaasan ka cadhooday saa daraadeed baan u soo galay aad baan idin salaamay waa mahadsantii salaamu calaykum